reer Colombosow raggii aysaa falaarkan aad u jeedaan saad ka aragtaan waxay joogaan hotel ku yaalo Olentangy River Marriott ay joogaan waxay bilaabeen shalay oo taariikhda ahayd talaado bishii 2026 inay south side-ka albaaba qaraacaan waxaa soo arkay activistiyaal iyo dadka u ololeeyo hay'adaha u ololeeyo dadka soo galootiga ayaa arkay arrinkaana xaqiijiye falaayirkaana sameeyeen marka waxay rabaan la yiri inay asbuucyada soo socdaan albaaba ay qaraacaan dadka ay rabaana ama immigrant-ga ay rabaana ay kala soo baxaan marka dadka ayaa looga digay waxaan lagu waaniyay dadka inaysan albaabka inaysan furin is ilaaliyaana taxadaraan intay taxadari karaan dhalinyarada darbika buudka waxaan leeyahay fadlan arrintan waa arrin serious waa arrin tactical cusub ee ay isticmaalayso inay door to door knock sameynayso ayagoo koox badana south side-ka ay shalay ka bilaabeen waxaa la filayaa inay meelaha kalena magaalooyinka eastiga northka iyo westigaba ay imaan doonaan marka hala taxadaro hana la iska ilaaliyo qof walbow haddii aad guriga ku jirtid waxaa laga yaabaa inaad badbaadaysid oo aad shartooda ka badbaadaysid marka is ilaali albaabkana ha furinina mideeda kale Trump shalay wuxuu yiri dadka Soomaalida sharciga Mareykanka waa ka ceshanayaa qaasatan kuwa sameeyo fraudka oo dadkeena dhaco marka arrinkaasna waa arrin u baahan maxkamad denaturalization waxay u baahan tahay process dheer oo maxkamadeed Trump intuu iska dhaho macalna qofkii dambi galo oo homeland care ama daycare dhaco ama hantida dawladda dhaco public money dhaco maxkamadii process maraa xabsi ayaa la geliyaa laakiin denaturalization ayaan ku sameynayaa kabacdi Soomaaliya ayaan ku celinayaa warku Trump leeyahay waa war aan macquul ahayn in citizenshipka uu qofka ka xayuubiyo Trump awood ma laha xaq ma lahan process dheer ah oo maxkamada ay martaa oo muddo qaadato marka ninkan Trump Soomaaliya ku qafiifay tarxiilkii meel walba ka socda Minneapolis waa aragtaa wax ka dhacayo fadlan Soomaaliya hal is ilaaliyo xilli adag ayaan ku jirnaa Soomaalida Mareykan Allah sharta Trump